والله dhinac walba waan ka eegnay siirada iyo taariikhda quraanka diinta islaamka haweenku waxay u soo qabteen wax la qiyaasi karo maaha neef lama nabi maxamed neef ma gowracayn ilaa wuxuu oran jiray khadiija dumarkii ay saaxiibada ahaayeen hilibka u geeya markaas Aisha radiyallahu anha maalin kale inta isxajin kari weeday bay ku tiri nabi allah meel walba khadiija baad ku hadal haysaaya waa sidee miyana dumar kale ba adduunka lagu abuurin markaa buu nabigu ku inni ruziqtu hubbaha ya Aisha khadiija oo sii mootan ina jaclaada jacaylkeeda ilaahay bay ugu warsaaqay buu rasuulku yiri وارون نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي خديجة دمتي خديجة نبي قعدنا لما قرسنا كل جد بقبي وأمرك خديجة كجيريوتي وحنا نبي قريرها بدن يالنا يو ريره الدنبو يش النبي عايشة وجعلا لكن خديجة يا عاش الاسم بربر دقين أنا خديجة جعيل كي إلهي بيجو أرزاقي برسولك يدي قرآن كسورة الرجال كمان أركن لكن سورة النساء واتكو أركتين حقوق ديننا دينة إسلامكم مال أدق بيسارتي نولشنا وحادوتهين وضب دحاد dadka adduunyada ku nool waa saddex qaybood waa rag haween iyo ubad raggu iyo ubadku iskuma xidhmi karaan hamzatul wasl labada cidda isku xidhaysa waa haweenka weeyaan haween la'aan nolosha adduunyadu isma taagayso منبت الأجيال أجيال دتك عدة ما أنت صوصار يسوي وح صوصار كله وإنك قبل مؤمنادو شريكة بينك هذا لا تهم مسؤولية دريرك والنبي قالنا شيء عليه الصلاة والسلام ويدي نكون ريركي سسقا كمسؤولة قبل أن إنك هذا وحود يبتيجا كمسؤولة برسولك يدي وبتكيج يا وح أقل كدحيا لأنك هذا وحود يبتي أيدا كمسؤولة بالنبي يدي أفر بنبي يقول إنك إلهي سيئي خير الدنيا والآخرة قفك سوى لسيئي أفر توحى كمد بنبي يقول إلهي إنك أوسي قبل ونكسن وصالح هذا وإنك يغنى أنا خيامين نفت يدنا إلى لنا صور دورصان بنبي يقول وقبل يدنا دورصان إلى لنا إسا وحو إنك يدو يبتنو إلى لنا إسا بنبي يقول أفر وخصلت أفراد هذان تورث الشيء وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها وماله بنبي يري أفرت قفك إلى هاي أوصيو نعمديها أدونك يا الله ونوحي خير الدنيا لي يوحي خير آخرية لقفك إلى هاي أوصيي قلب مهنقا يعرب ذكرك إلهي كوكويا يجرك أتكيس بدن أو دباتدا يا حنونك يا جيريدا يا مصايبته أتكيسنا يا oo adkaysanaya iyo gabadh wanaagsan oo saalixada oo ninkeeda aan khiyaamayn la nafteedana ilaalinaysa weeyaan oo dhowrsoono ninkeeda uu ku eg weeyaan waxa ninkeedu u dhiibtana oo ilaalinaysa buu rasuulku yiri waad maqasheen 10 mubashirin bil janna tobanka jannada loo bishaareeyay waxaa laga yaabaa inay istiraadaan dee raggunbuu nebigu jannada u bishaareeyey mee haweenkii laakiin haweenkaa ka badan haweenka mubasharaadka jannada loo bishaareeyey ragga waa ka badan yihiin أزواج النبي عليه الصلاة والسلام المطهرات كل قد ومبشرات بالجنة حاسسك النبي محمد كل قد سيدي أبديهين وهو أهل الجنة طبعا كي ما دافن مسا ما دافن ودافن واحد قدرتها سمية قدر واحد قدرتها ما ركتاني أم أنس بن مالك أم سليم قدر واحد قدرتها قبدي مدوبي أتمد النبي عليه الصلاة والسلام أتر إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي أن لا أتكشف يا رسول الله أنا قوان صوحا وقلل بان ليهي ميلها أنا وان كدعا دانا مركا وان خشف ما بي كتريه إلهي جل وعلا إنو أستراد إنو مرض إيقو قبطو وآنا لي أركن إلهي إي ويدي مركا أبو نبي ورين شيتي صبرتي ولك الجنة حداد دونتا وادت كيسن وعمل أو جنة كهلي دونتا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حداد دون تدبو نبي قول إلهي إنو عافماتكو السينا
dee waan kuu ducayn buu nebigu ku yidhi waxay tidhi bas xanuunka halkiisa ku dhaaf laakiin yaynan maradu iga beylahmin bay ku tidhi xishoodku fiicana haweenkana ku sii fiicana walxayaau shucbatu min aliimaan qofku xishoodka baa nebigu waa qayb ka mida iimaanka dumarkana iyo xishoodka uu ku sii fiican yahay maanta waxaad arkaysaa gabdhaheenna intay social mediagaysa soo dhigaan ayay quruxdooda ku baayac mushtarineen lacag ku raadinayaan iyadoo suuxday oo miyir daboolsantay oo jidadka ku dhacday oo xataa aan dembiba lahayn xataa salaad laguma le qofkaas markuu kaco unbuu salaada soo celin hadduu sooman yahayna bay yidhahdaa fuqahadu jamhuurulculamaa oo maqribkii la gaadho maqrib laga baxo soonkaasi bay leeyihiin maalin kaluu qofku qallaynayaa laakiin hadduu soo kaco intaan maqrib la gaadhin oo saacadayr qofku uu suuxsanaa soonkaas uu haysanaya soonkii ka jabi maaya bay fuqahada qaar ay leeyihiin bal qofka intaasoo cudurdaar shareecaddu u samaysay ayay haddana gabadha ka fikiraysaa ay leedahay maca daalika anigoo suuxsan yaynan maradaydu iga beylahmin oo cawradayda la arkin ii ducee nebi allow inuu lahay asturo khashifin markaasuu nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam 30 sano ku dhowaad ama 28 sano ilaa meelaha ayay nebiga dabadii sii noolayd xanuunkaasay la tacaalaysay oo xanuunkaasay la saaxiibtay oo xanuunkaasaa lagu yaqaanay oo markay meelaha ku dhacdaba waxaa la odhan jiray waa gabadhii nebigu jannada u bishaareeyey weeyaan cataa ibnu abi rabaax oo taabiciinta raggii ugu faqiihsana ahaa oo ibnu cabbaas ardaygiisii ahaa ayuu cabdullaahi ibnu cabbaas ku odhan jiray alaa uriika imra'atan min ahli aljanna yaa cataa haweeney ahluljanna ma ku tusaa gabadha halkaa maraysa buu yihi waa ahluljanno gabadhaas oo ahluljanno siday markaa ahluljannaha ku noqotay buu markaa ugu sheegan jiray ibnu cabbaas markaa diinta makaanad weynbad ayay ina saartay ha ka soo dhicina makaanadiinnii sida diintu tidhi ku socda oo diinta dadaalka qaybtiina ka qaata nicmadda maanta ininku aada haysataan saxaabiyaadku may haysan haddana diinta qaybtoodiiba ka qaateen kaga soo aadanayd inamadooday u diyaariyeen diin inay u dhintaan lihaada alyowma ardactuhu wa cinda allaahi ixtasabtuhu umucamaaro markii loo sheegay lagu yidhi inankaaga xabiib ibnu zayd musallimatu lkadaab ayuu nebigu warqad ugu dhiibay deedna markaasaa la googooyey jirhkiisii oo maxaa loo dilayaa nebi maxamed inuu nebi yahay ma rumayn buu ku yidhi haa waan rumaysanahay buu ka yidhi anna inaan nebi yahay may rumayn buu yidhi musallima markaasuu yidhi maya adigu kadaab been badanaa tahay buu yidhi beenaalaa tahay buu ka yidhi markaa buu gacan ka gooya markaasaa dheg laga gooy oo lug laga gooy intaa maxaa laga rabaa inuu ka helo yidhahdo adiguna rasuul baa tahay walaakiin markuu nebi maxamed weydiiyey nebinimadiisana uu qiraa markuu asagu isweydiiyena wuxuu yidhaahdaa adigoo beenaale waxaa tahay beenaalayaashii nebigu noo sheegay mid ka mid a tahay markaa buu lugta ka gooya dhegta ka gooya sanka ka gooya sida jirhkiisa loo googoynayey ayay naftu ay ka baxday baa la yidhi markaasaa loo sheegay hooyadii uu nebigu yihi mucamaro tacsiyadeeya inankeedii saasaa loo googooye markii loo sheegay tidhi inankayga hadafka aan u soo barbaariyey ee yaraantiisa ugu soo tabcay ee naaska aan u soo nuujinayaba waxay ahayd inuu diinta difaaceega iyo kuryeelkeeda sidaa ugu dhinto ayaabaan u soo barbaariyey tir naaska u nuujinayey aniguna maanta ilaahay agtiisa sharaf iyo maqaam baan ku helayaa ajar iyo khayrna ilaahay baan kaga sugayaa bay ku tidhi mujtamaca wax ku biiriya yaanan baatilku xaggiina nooga soo dhicin maanta baatilku inta badan dumarku soo dhex maraa waxa lii wixii la xayeysiin ma rag baa lagu xayeysiiyaa mise haweenka ya haweenka lagu xayeysiiyaa halkaa maxaad arkaysaa waa madkhal gabadhu ama waxay noqotaa madkhal meel khayrku ummadda uga soo galo oo wanaaggu ummadda uga soo galo jiilal wanaagsan bay tarbiyadaysaa oo dhal wanaagsan bay soo saartaay oo ilaahay taqaano aakhiro taqaanaa ama madkhalulbaatil bay noqono dadna ahlulbaatilka markaa isticmaalayo ku guuraya gabadha inta badanna maanta gabdhaha muslimaadka waa la isticmaalay oo gaala isticmaalaysay munaafiqiin marka dacwadda qaybta inagaga soo aadan ininkuna qaata
oo dhageystayaal diineed oo kaliya ha noqonine shaqaale diineed noqda